kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta waa maalinimo axada taariikhduna waa 19 bisha 7 2026 wararkii ugu waaweynaa dagaalada ka soconaya bariga dhexe ayaynu barnaamijkeena gabi ahaantii ku faahfaahineynaa haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa dhanka Mareykanka iyo wararkii ugu dambeeyay ee ay dagaalka hadda ka soconaya bariga dhexe ka soo saareen haddaba marka ugu horeysa taqriir ama warbixin lagu faafiyay warbaahinta ayaa waxay sheegaysaa in Mareykanka taliska dhexe ee ciidamada Mareykanku ay sheegeen inay soo gabagabeeyeen maalinkii 8aad garaacista ay ku hayaan bartilmaameedyada militariga ee Iran haddaba wariyaha telefishinka Al Jazeera uga soo waramaya magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran ninka la yiraahdo Murad Hashim ayaa wuxuu sheegay in taliska dhexe ciidamada Mareykanka CENTCOM ay duqeymahooda sheegeen inay ku bartilmaameedsadeen goobaha difaaca cirka Iran iyo goobo ay ku kaydsanayeen sawaariikh ama diyaarado drones iyo gantaalo iyadoo la sheegay awoodda ciidamada badda Iran iyo waliba goobaha ay yaaleen hanaanka lagala socdo dhaqdhaqaaqa badda in dhammaan arrimahaas Mareykanka ay duqeeyeen waxay soo kale Mareykanku xaqiijiyeen in gobolka bariga dhexe hadda ay ka joogaan ciidamo tiradoodu ay gaarayso 50,000 oo askari iyadoo la sheegay in ciidamadaasu ay halkaa u joogaan sidii ay uga qayb gali lahaayeen dagaalka ka dhanka Iran way marka macluumaad guud xisaaba socota waana la soconaa xisaabta shalay waxay ahayd يوم السابع مالكي تضباط ولا صحري هذا ما أنت وحلا صحري مالكي سديدات حلا يوبلوذها بينكي سديدات إلى ما أنت وحيد على عي وصحر نيرادين مركب وحي يقوليهين وحينو معلم والبوحي الشيغان انتان الشيغان وحان برتلمامات سني meelaha raadaarada iyo hubka iyo gantaalaha iyo droniska Iran ay yaalaan iyo waxaasaan bartilmaameedsanay yiraahdaan isku warkii oo kala waa maalin kasta marka aagagaas ayaan duqeynay si aanu u baabi'ino awoodda Iran isla wararka Mareykanka ayaa waxa ku jira maanta tirada ciidanka Mareykanka kaga dhintay dagaalka ka socda bariga dhexe wuxuu gaarayaa 16 askari marayaan 16 askari oo Mareykan ayaa sheegaya Mareykanka sheegay haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay 16 militariga Mareykanka ka tirsan ayaa ku dhintay